بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. وظرف المكان ظرف المكان كي هو ظرف المكان كو اسم المكان ومكان مقعيس اسم المكان كاسو المنصوب إلى كردقه بتقدير المعنى فيه معناها في قدرتان كيسي لغو كردقه وحانو سو هذا الهيني ظرف الزمان هي ظرف المكان أحكام تودي وحانو سو قادني أحكامتي ظرف الزمان. halkan wuxuu doonay sheekhu raximahullahu tacaala inuu ka bilaabo axkaamtii darfulmakaan. darafkan darfulmakaan sheekhu wuu ku tacriifiyey, wuxuu ku soo hormariyey horta maxaa la yidhaahaa darfulmakaan. maa huwa darfulmakaan? darfulmakaan muxuu yahay? wuxuu ku yidhi sheekhu wa darfulmakaan huwa ismu lmakaan, waa makaan magaciisii. makaan magaciisi maxaa loola jeedaa? اسم المكان يعني ومن باب إضافة الدال إلى المدلول. دالجي أو حلوة ديفيي معنيه وتسنية ولجدد مركب ماشى كسر بحيس وحوي واسم يدل على المكان. إضافة معنيه أساس النقل. اسم المكان ومكان مجيء من إضافة الدال إلى المدلول. معناها اللي لجدد مركب محون قنا اسم يدل على المكان. ظرف المكان كو واسم تصيه بوس ولقي ظرف المكان كو حكو تصيه مكان أما بوس مركا اسم اللي يري. هل كم حد كقرتي وعد كفهمتي ظرف المكان لا يكون فعلا ولا حرفا. ظرف المكان إنوسا فعلا نغنكرين حرفنا وسن نغنكرين. وحكى له الشيخ وكيري اسم كاسو المنصوب لكردقه ووحو كمد يهي منصوبات الأسماء. أسماء لكردقه أيو كجرا لكن مركا الأولى هي المنصوب ومعنيها أنه كسو قادة نيذر في زمان كي منصوب كها وكال أيو شيخ ولجهده وحوي وهدوسا فاعل نغن وهدوسا جار مجرور نغن وهدوسا نغن نائب الفاعل. أما هدي جار مجرور النقضة أما ظرف المكان كي النقضة فاعل أما النقضة نائب الفاعل نصبه وكبه فهو بحسب الحالة التي يجيء عليها. حالة مركز الجوجو أي لغو قيمينا. المنصوب لكردقو بتقدير معنى فيه معناها في قدرتان كذي لغو كردقو. waxaa loola jeedaa waa tii aanu ku soo marnay darfu zamaanka oo kale oo waxaa loola jeedaa mansuubun cala darfiya liannahu fii macnaha ay faa'iidaysaa maxay tahay? fii waxay faa'iidaysaa darafnimo, dhexnimo. marka ulajeedada waxaa weeye darfulmakaan waa mansuub cala darfiya liannahu wuxuu qabaa bimacnaa fii. macnaa fiina waxaa weeye waa dhexnimo. fii waxay tusisaa dhexnimo. marka darfulmakaan kulligiis mansuub ma wada aha. darfulmakaan kulligiis mansuub cala darfiya ma aha. bal culimada naxwuhu waxay sheegeen darfulmakaan waxa mansuubka ah waa afar qaybood oo kale ah. afar qaybood oo kale ah ayaa mansuubka ah. maa yadullu cala aljiha. darfulmakaanka hadduu tusiyo jiho waa mansuub. tusaale ahaan fawq jihada naga sarraysuu tusina, taxt jihada naga hoosaysuu tusin. ereyga amaam
wuxuu tusinaa jihada hortaada ah ereyga waraa wuxuu ku tusinaa jihada gadaashaada ah kulliga maxaa la isku yidhaha asmaa'u ljihaada la yidhaha asmaa'u ljihaad ama ismu ljiha waa magacyada jihada tusis kuwaas waa la kordhigaa oo darfulmakaannimo ayaa lagu kordhigaa kan labaad oo darfulmakaanka oo mansuub noqon kara maa yadullu cala almaqaadiir maa yadullu cala almaqaadiir maa yadullu cala almaqaadiir waa wixii tusiya miqdaar miqdaar wixii tusiya oo miqdaar ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni waa masaafo cabir ah masaafo cabir ah maalan sirtu miilan hal maylaan socday sirtu farsakhan waxaan socday hal farsakh farsakh ayaan socday erayadaa miqdaarka tusinaya xisaabta tusinaya ayagana waxaa lagu kordhigi karaa darfulmakaan waxaa kaloo darfulmakaan noqon kara oo darfulmakaan lagu nasbin karaa maa siiqa min alficli maa siiqa min alficli maa siiqa min alficli wixii ficilka laga soo qaatay tusaale ahaan ereyga majlis majlis makaanu fadhi waa darfulmakaan xaggee laga soo qaatay min jalasa darfulmakaanku hadduu ficil iska leeyahay isagana darfulmakaannimo waa lagu nasbin karaa darfulmakaannimo waa lagu nasbin karaa waxaa la mida maalan marman marman makaanu tuurid ereyga marman xaggee laga keenay isagana ficil uu iska leeyahay soo maha haguu ka yimid ramaa ramaa wuu tuuray marman makaanu tuurid waxaa kaloo la mida maqcad maqcad makaanu fadhi isaguna waa mansuub cala darfiya waxaa lagu nasbin karaa darfulmakaan liannahu isaguna muxuu ku tusinaa wuxuu ku tusinaa inuu ficil laga soo qaatay hagee laga soo qaatay isagana qacada marka darfulmakaan erayadaa unbaa waxay ka noqon karaan mansuub wa kullu waqtin qaabilun daka wamaa yaqbaluhu اlmakaanu ilaa mubhama naxwu اljihaati wاlmaqaadiiri wamaa siiqa min alficli ka marman min rama waa intaas waa mubham darfulmakaanka tusinaya mubham mubham waxaa loola jeeda asmaa ljihaad asmaa ljihaad wixii ah iyo wixii miqdaar tusinaya maqaadiir iyo wixii maa siiqa min alficl saddexdaas maa siiqa min alficl iyo wixii ficil laga qaato saddexdaas unbaa darfulmakaannimo lagu nasbin karaa wixii ka soo haray haddii aan aragno isagoo mansuuba waa mansuubun binasci اlkhaafid maalan maxaa ka soo haray waxaa ka soo haray ereygan albeyt albeyt haddaan idhaho beyt guri ereyga beyt muxuu ku tusinaa makaanka aad degan tahay guriga daartaadu ay ku taalo laakiin ereygan beyt saddexdii aanu soo sheegnaba midna ka mid ma ah oo ma noqonayo asmaa uljihaad ma ah asmaa ulmaqaadiir ma ah maa siiqa min alficlina ma ahan idan marka darfulmakaanna wuu yahayo wuxuu ku tusinaa makaan ereygaasoo kale kuma nasbin karno darfulmakaan maxaan markaas leenahay lacalla isagoo mansuuba haddaan aragno oo luqa alcarabiya aanu ku aragno isagoo la kordhigay maalan luqa alcarabiya mararka qaar waxaa la arkay ereyga beyt oo saddexdii aanu soo sheegnay midna aan ka mid ahayn isagoo la kordhigaya la arko la yidhi dakhaltu albeyta gurigiiyaan kale markaasoo kale culimmada naxwuhu waxay leeyihiin waxaa lagu kordhigi mansuubun binasci اlkhaafidi mansuubun binasci اlkhaafidi waxaa markaasoo kale lagu kordhigay xarafkii hoos dhigi lahaa ayaa laga xadfay oo asalkiisu wuxuu ahaa dakhaltu waxaan galay albeyta fi lbeyti fi lbeyti guriga dhexdiisaan galay saasuu asalku ahaa maadaama xarafkii jaar la xadfay
xarafka jaar meesha haddii laga xadfana ereygu wuxuu isku beddelaa mansuub. marka haddii aanu saddexdan wax ka baxsan luqa alcarabiya aanu ku aragno oo la leeyahay waa darfulmakaan, waxaanu leenahay waa mansuubun binasci lkhaafidi. nascu lkhaafid ayaa lagu nasbiyey ee darafnimo laguma nasbin. tusaalooyinka sheekhu inoo sheegi doonana dhammaantood kama bixi doonaan erayadan aanu sheegnay. sheekhu wuxuusan sheegin oo isagu uusan u banbixin maa siiqa min alficl, wixii ficil laga soo qaatay tusaalahooda nooma sheegin, laakiin qaybaha kale ayuu sheekhu noo tusaaleeyey. wuxuu ku yidhi sheekhu wadaalika naxwu amaama, horay oo kale. naxwu amaama, ereyga amaam muxuu ku jiraa saddexdii qaybood, xagguu ka geli? jihadiyuu geli. laasim wixii darfulmakaannimo lagu nasbinayo waa inaanu cadadkan aanu ka fiirin, xiidaankan iyo xeradan waa inay ku dhex jiraan laasim. ereyga amaam wuxuu ku jiraa asmaa'u ljihaad, lidaalika waa mansuubun cala adarfiyati almakaaniya, darfulmakaana lagu nasbiyey. tusaale maxaan leenahay? jalastu amaama shaykhi, jalastu waxaan fadhiistay amaama shaykhi, sheekha hortiisii. waa makaan ayay tusinaa, makaankii sheekha ka horreeyey ayaan fadhiistay. jalastu ficlan wa faacil, amaama darfulmakaan ayaan leenahay, mansuubun bitaqdiiri fii, wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fii aakhirih, wa darfu mutacalliqun bijalastu, jalastii ku tacalluq. amaama mudaaf, الشhaykhi mudaafun ilayhi majruur, wa calaamatu jarihi kasratun daahiraة fii aakhirih. wa khalfa gadaal, sallaytu khalfa alimaam, sallaytu waxaan ku tukaday khalfa alimaami, imaamka gadaashiisii ayaan salaada ku tukaday. ereyga khalfa xagguu noo geli isaguna? asmaaءu اljihaad. sallaytu ficlu wa faacil, khalfa darfu اlmakaan, mansuubun bitaqdiiri fii, wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fii aakhirih, wa darfu mutacalliqu bisallaytu. khalfa mudaaf, alimaami mudaafun ilayhi majruur, wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fii aakhirih. wa qudaama horay, jalastu waxaan fadhiistay qudaama albeyti, guriga hortiisayaan fadhiistay. jalastu ficlu wa faacil, qudaama darfu اlmakaan, mansuubun bitaqdiiri fii, wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fii aakhirih, wa darfu mutacalliqu bijalastu. qudaama mudaaf, albeyti mudaafun ilayhi majruur, wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fii aakhirih. wa waraa'a gadaal, isna muxuu noogu jiraa? asmaaءu ljihaad. waraa'a, jalastu waan fadhiistay waraa'a shaykhi, sheekha gadaashiisii ayaan fadhiistay. jalastu ficlu wa faacil, waraa'a darfu اlmakaan, mansuubun bitaqdiiri fii, wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fii aakhirih, wa darfu mutacalliqu bijalastu. waraa'a mudaaf, الشhaykhi mudaafun ilayhi majruur, wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fii aakhirih. wa fawqa korw, isaguna wuxuu noogu jiraa asmaaءu ljihaad. fawqa, jalastu waxaan fadhiistay fawqa الsadxi, saanqaafka dushiisii ayaan fadhiistay. jalastu fawqa الsadxi, jalastu ficlu wa faacil, fawqa darfu اlmakaan, mansuubun bitaqdiiri fii, wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fii aakhirih, wa darfu mutacalliqu bijalastu. fawqa mudaaf, الsadxi mudaafun ilayhi majruur, wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fii aakhirih. wa taxta hoosu, jalastu waan fadhiistay taxta الsadxi, saanqaafka hoostiisii ayaan fadhiistay. jalastu ficlu wa faacil, taxta darfu اlmakaan, mansuubun bitaqdiiri fii, wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fii aakhirih, wa darfu mutacalliqu bijalastu. taxta mudaaf, الsaqfi mudaafun ilayhi majruur, wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fii aakhirih.
وعند أكتب جلست وان فريستي عند زيد زيد أكتيسي أيام فريستي جلست فعل وفاعل عند ظرف المكان منصوب بتقدير فيه وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بجلست عند مضاف زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ومع تدل على المصاحبة مع وحيت سنة لصاحبت قفكينات صاحب لنغت تسالها المحاكمين سافرت وحن سفر لقلي مع الصديق صاحب كي معيسي بمعنى وحيت سن المصاحبة والمرافقة في السفر سفر كي إنات صاحب كل نغتي كل الرفيق دي سافرت مع الصديق صاحب كمعيسي أيان لا سفر سافرت فعل وفاعل مع ظرف المكان منصوب بتقدير فيه وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بسافرت مع مضاف الصديق مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وإزاء قابل كيو جلست وان فريستي إزاء البيت قرق قابل كيسي أيام فريستي جلست فعل وفاعل إزاء ظرف المكان منصوب بتقدير فيه وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بجلست إزاء مضاف البيت مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وحذاء قابل وكل اسم معنوي تلقاء يحذاء يإزاء كل بمعنى واحد حذاء جلست وان فريستي حذاء زيد قابل كيسي ملك آدن زيد أيان فريستي جلست فعل وفاعل حذاء ظرف المكان منصوب بتقدير فيه وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بجلست حذاء مضاف زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وتلقاء قابل ولما توجه تلقاء مدينة مقالة مدين قابل كيدي مركو جهست تلقاء ومنصوب على ظرفية تلقاء جلست وان فريستي تلقاء البيت قرق قابل كيسي أيام فريستي جلست فعل وفاعل تلقاء ظرف المكان منصوب بتقدير فيه وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بجلست تلقاء مضاف البيت مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وثم هالكاس ينفرست ثم هالكاس إريقا ثم ظرف المكان نوويه إشارة نوويه إشارة وويه وحوي وحلقوا استعمالا إشارة إلى المكان البعيد وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم هالكاس هدي أدركت marka ereyga thamma de waxaan kaloon soo qaadanay saada haddii la godo oo thumma la yiraahdo muxuu noqonaa ya xuruuf alcadaf laakiin markii saada aan kor dhigno niraaho thamma waxaa loo isticmaalaa ismu lishaara oo ah dharfu lmakaan thamma halkaa jalastu waan fariistay thamma halkaas ayaan fariistay jalastu ficlan wa faacil ثم ظرف المكان منصوب بتقدير فيه مبني على الفتح في محل نصب والسبب محيط كوي هرب من إعرابه إنه منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة في آخره أيان له نية ثم السبب مبني لو قدقي محيط هاي السبب مبني لو قدقي وحوه لأنه اسم من أسماء الإشارة واسم الإشارة كلها مبنية بدون استثناء أيضا هل حب لقى سرهبين إرياد اسم الإشارة هنا كل جود ومبني مركب وحكس على ما دام اسم الإشارة وياهي قاعدة النظام كي أسلوب كي
ismul ishaaraha lagula dhaqmi jiray ayaa isagana aan kula dhaqmayna ilaa ismul ishaara mucrabihi ma jirto ismul ishaara kulligeed waxa weeye waa mabni kulligeed mabni sidaasaan marka waxaan leenahay thama ظرف المكان منصوب بتقدير فيه مبني على الفتح في محل نصب وظرف متعلق بجلست وهنا هل كم هنا يسقون وحول من يهي أريجا ثم يسقون وحول الله استعماله اسم الإشارة وبهنا وها هنا أشير إلى دان المكان وبه الكاف الصلة في البعد أو بثم فيه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا ماشي ابن مالك وليه هنا يسقون وحول الله استعماله اسم الإشارة اسم الإشارة وحول الله جلست وانفرستي هنا هل كم marka farqiga u dhaxeeya maxay tahay thama iyo huna farqiga u dhaxeeya waxa weeye horta mid walba darful makaan uu yahay ismul ishaarana uu yahay laakiin farqiga u dhaxeeya waxa weeye thama yusharu ila al makan al ba'id wa huna isharatun ila al makan al qarib huna waxa lagu ishaaraa meesha dhow makaanka ku dhow jalastu huna halkan dhow ayaan fariistay hadaa tiraahdo laakiin jalastu thama meel baciida hada ishaara meel baciida ayaad ishaari markaa جلست وان فريستي هنا هل كان دو أيام فريستي جلست فعل وفاعل هنا ظرف المكان منصوب بتقدير فيه مبني على السكون في محل نصب لماذا؟ محنكوي كلاو خلاف في النور استجنا مبني صابتا أنير محيط واحد وجد جوابي سيدي أن وجد جوابني ثم جوابتي أن كسب بحني هم باتنا وجد جوابي واحد لا لهي لأنه اسم من أسماء الإشارة واسم الإشارة كلها مبنية واسم إشارة واسم إشارة كل جيس ومبني هنا وظرف المكان منصوب بتقدير فيه مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بجلست هي وما أشبه ذلك المذكور وحال الله شيء وحي ويك وظرف المكان بقى وقياس قادو كبير الشيخ رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى